sii daysaan oo hinteeda ha idinkala tagtee markaas bay waxay igu yidhaahdeen bay tidhi naa orado haddaad doonayso ninkaagii ka daba tag waa sanad kadib markii la hayay reer banu cabdi asadna markaasay ii soo celiyeen bay tidhi inankaygii neefkaygii geela baan soo qabsaday bay tidhi iyadoo aan cidi ila socon ayaan damcay bay tidhi intaan ilmahayga yar qaato awrkayga kaxaysto inaan dhowrkaa 100 kilomitir socdo 500 kilomitir meelaha Maka iyo Madiina islaan kaligeed aan qofna la socon ayaan u badheeray bay tidhi inaan kaligeed iska socdo qof isagoo aan ila socon baan baxay bay tidhi anigoo dhexda si meelaha eeganayo ninkaygii cid sii weydiinaya iyo meesha ugu dambeeyay Makaba markaan yar ka baxay bay leedahay Tanciim meeshan la yiraahdo cimrada dadku ay ka soo xidhxidhaan Tanciim markaan maraya waxay la kulmay bay tidhi Uthman ibn Talha ibn Abi Talha saxaabiga la oran jiray markaan gaalaysna wuxuu ku yidhi ilaa ayn ya bint abi umayya na xagaad u socotaa buu ku yidhi xagaad qabanaysa waxaan idhi bay tidhi waxaan rabaa ninkaygii iyo Madiina inaan qabto aw ma macaka ahad buu ku yidhi marka oo miyaan cidiba kula socon laa wallahi ila allah wa baniya hada alla unba ilabeeya bay tidhi iyo wiilkayga yar cid kale oo aan weheshado ma haysto nin carbeed oo weli raganimo ku harsantu ahaa wuxuu yidhi markaasi wallahan ku dhaartay inaan sida lagaaga tagayn saasi si maahay gabadhiya ilmaheed yar inta wada cid la afka loo saaro in la yiraahdo iska tagay awrkiibu hoggaanka qabtay bay tidhi ninkan waa nin reer Maka meel la kuma socdo laakiin wuxuu ka naxay gabadhan kaligeed inta ninkeedii laga reebay kaligeed meesha cidlada u sii socota markaasoo awrkaygii intuu hoggaanka qabtay ayuu la dhaqaaqay bay tidhi sidaasuu igu waday bay tidhi markuu meel rabo inaanu degno intuu awrka ii fadhiisiyo ii qarqarsiyo ayuu dib iga baxayo iga tagaabay tidhi si aan u ararag markaan awrka ka daadagayo waxa waan ka daadagaayo dabeetana dantaydaan dhammaystaa hadhow ayuu awrka kaxeeyaa geedii igu xidhaa marka waan safarku dib u bilaabmayana waa soo kaxeeyaa intuu ii qarqarsiyo ii fadhiisiyo ayuu iga tagaabay tidhi marka si wanaagsan u fuulo ayuu haddana hoggaanka qabtaa nin xishood ku jira buu ahaa saas buu u waday bay tidhi ilaa iyo aanu ka tegaynay magaaladii Madiina qarya banu Amr ibn Auf biquba yani quba markaanu gaadhnay bay tidhi ayuu wuxuu yidhi naya waa gabadha halkaas baa ninkaagii degan yahay orod haddaba fadkhiliha calaa barakati illah buu yidhi wakaas ninkaagii u gal halkiibuu dib uga laabto oo Maka u soo noqday dan kale oo kala isaga ma jirin inuu Maka qabtee gabadhan uu ka naxay meesha la silciyay waxay odhan jirtay markaasi Salama والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان بن طلحة سلمة وحي على يسول هيدنا يتلاقضوا ما نرق إسلام كقري وكل دعي وحي غير أبو سلمة قري جيسا كل دعي سدح نقف مد بما الله كحيستي ما نرق بيتلي نين ككريم سنة وكم شرفتي بدن نينك الله يرادو عثمان بن طلحة ما نرق بيتلي عثمان بن طلحة مرضا بقى إلهي قلبي سدين تسوق لي وبعد صلح الحديبية